waraaq ay markaasi ku qoran yihiin dhammaan markaasi بورتييريغا حمد ايا مركاسي جوش لو كشي هونود لكن عبد المالك احمد عيسى مليو كوبداسي والله شبay kubadani nugaal way bilowday darbaaxada diri daba waa laga saaray raali ahaada ayaan markaasi leeyahay diri daba boortiyeeriga koowaad xulka gobolka mudug markaasi waa markaan laga saaray markani waxa soo galay boortiyeer hanad kaasi oo kaliya loo soo diray in rigoorayaasha uu qabto waxa la soo diray dhacdiish lambarka labaad ee xulka gobolka mudug ciyaaryahanka lambarka labaad ee xulka gobolka mudug ayaa markaasi la soo diray ciyaaryahanka xulka gobolka mudug ayaa la soo diray mukhtaar agi mudug dacdiish mukhtaar waa laga dhaliyey si qurux badan ciyaaryahan dacdiish waxa uu leeyahay isdejiya waxa uu dejinayaa sawaxanka waxauna leeyahay markan kaca ciyaaryahan dacdiish lambarka labaad xulka gobolka ee mudug waxaa la soo diray markaasi ciyaaryahan kaabe haddii uu dhaliyey lambarka labaad ee xulka gobolka mudug waxaa la soo diray markan lambarka labaad ee xulka gobolka ee nugaal ciyaaryahan kaabe ayaa markaasi la soo diray kaabe lambarka labaad ee xulka gobolka ee nugaal ayaa la soo diray ciyaaryahan kaabe iyo hanad ayaa ku badanaya taala hal iyo hal kaabe hanad koobe waa laga qabtay kubaddaasi kaabe waa looga raaxaystay kubaddani kaabe waa looga raaxaystay kaabe waa laga qabtay hanad seef arqaabkii uu qabtay ciyaaryahan hanad daafac ayaa la soo diray la soo diray ciyaaryahan maanka ayaa la soo diray lambarka afraad ee xulka gobolka ee mudug ciyaaryahan maanka kaabe waa laga qabtay waxay noqotay ciyaartu hal iyo hal laakiin haddii uu dhaliya maanka waxay noqonaysaa laba iyo hal xulka gobolka mudugna ay ku hogaaminayso maanka kubaddaasi mukhtaar waa uu dhaliyey markan maanka laba gool iyo gool xulka gobolka ee mudug ayaa hoggaanka haya xulka gobolka ee mudug ayaa haya mudug ayaa markaasi la soo diray markan Thomas ayaa markaasi la soo diray kabtanka xulka gobolka nugaal ciyaaryahan cabdixamiid Thomas hanad waxa uu fiirsanayaa waxa uu akhrinayaa waxauna tilmaamanayaa halka ay dhigayaan waa kan cabdixamiid Thomas hanad boortiyeeriga xulka gobolka ee mudug waxa loo soo diray keliya inuu rigoorayaasha uu ka qabto ciyaartayda xulka gobolka nugaal cabdixamiid Thomas iyo xulka gobolka mudug Thomas waa dhaliyey Thomas laba gool laakiin tuurashadu waa 3 iyo 2 laakiin tuurashadu waa 3 iyo 2 nugaal hal mar ayay cuntay waxa la soo diray moocade faraska cad ayaa la soo diray Federico Valverde faraska cad ayaa la soo diray markaasi moocade bedel ayuu ku soo galay kulankani waxayna u soo galeen in rigoorayaashooda ay qayb ka qaataan moocade kubaddani moocade kubaddani mukhtaar waa soo noqday nugaal waa ay soo noqotay nugaal iga qor haddaba haddii aad soo noqotay mar labaad waxaad tahay jambiyon waxaad tahay cidda badinaysa nugaal 2 gool iyadoo leeyahay waa ay soo noqotay nugaal iyadoo laga qabtay rigoore waa ay soo noqotay mar kale waa ay soo noqotay haddiiba aad ka soo noqonaysa meelaha halisaha ah waxaad tahay markaasi ciyaaryahan oo maxul jambiyon noqonaya waxaa soo qaadanaya markaani badbaadiyaha xulka gobolka nugaal
ciyaaryahan qoor ayaa qaadanaya badbaadiyaha xulka gobolka nugaal ayaa qaadanaya qoor ayaa qaadanaya badbaadiyaha xulka gobolka nugaal goolkii labaad ee kulanka isaga ayaa dhaliyey iyadoo gool lagu leeyahay isaga ayaa markaasi ugu shubay xulka gobolka ee markaasi mudug waa uu soo celiyey nugaal markanna mukhtaar agi ayaa soo celinaya waa kan qoor waa uu dhaliyey qoor waxa uu leeyahay markan aan wada joogna markaasi waxa uu leeyahay markan aan wada soconna markaasi waxa uu leeyahay markan igu kalsoonaada xulka gobolka nugaalow qoor gool dhaliyaha xulka gobolka ee nugaal waxaa la soo diray xuseen baliile kabtanka xulka gobolka ee mudug ayaa markaasi la soo diray kabtanka xulka gobolka mudug ayaa la soo diray kabtan xuseen baliile hal iyo hal ayaa la iska hayaa 4 ayay tuurteen nugaal 3 ayay tuuratay xulka gobolka ee mudug midkii afraad ayay tuuranaysaa xuseen baliile kabtan xuseen iyo mukhtaar kabtan xuseen waa dhaliyey kabtan xuseen isdejiye ayuu markaasi leeyahay kabtan xuseen baliile isdejiye ayuu leeyahay xuseen baliile waxa uu markaasi tilmaamayaa inay markaasi isdejiyaan tooko aboko middii shanaad ayay turanayaan xulka gobolka nugaal tooko aboko ayaa loo soo idmaday in kulankaani rigooradani uu turto tooko aboko kubaddaasi lambarka shanaad ee xulka gobolka nugaal ciyaaryahan tooko aboko kubaddaasi nugaal tooko waxa uu tuuray qumbulad shuud iyo wallaahiba markaasi kubad halisa waxa uuna tilmaamay markan in ay isdejiyaan ciyaartoyda xulka gobolka ee nugaal middii shanaad ayay tuuranayaan amiirka xulka gobolka mudug ayaa la soo diray waxa uu leeyahay igu kalsoonaada waxa uu leeyahay idaaya waxa uu leeyahay taabta waxa uuna leeyahay ifiiriya amiire lambarka lixaad ee xulka gobolka mudug haddii laga qabto waa baybay haddii laga qabto waa fiinaale mudug haddii laga qabto xulka gobolka mudug markaasi waa laga reebay haddii laga qabto xulka gobolka mudug markaasi waa baybay amiire waa uu degan yahay waa uu qaadanayaa waa uuna turanayaa kulankaani amiire waa la reebay mar kale mudug waxay ku dhibban tahay inay dhaafto nugaal mudug waxay ku dhibban tahay inay dhaafto nugaal mudug waxay ku dhibban tahay inay ka gudubto nugaal mudug waxay ku dhibban tahay inay qaaddo koobkan mudug waxay ku dhibban tahay inay ku guulaysato tartankan mudug waxay ku dhibban tahay inay ku guulaysato tartankan nugaal waa fiinal arag qaabkii ay u qaateen qaabkii uu markaasi u dhaliyey kabtanka xulka gobolka nugaal qabtan toomaas baybay xulka gobolka mudug xulka gobolka mudug nugaal waa fiinal amiire ma noqon sanadkiisii ma noqon markiisii horey ayuu u sheegay amiire inuu ka fadhiisanayo kubadda uuna kaga fadhiisanayo horyaalka laakiin dhammaan xulka mudug waa ay soo kiciyeen amiire sababtoo ah waa khibrad sababtoo ah waa taageer sababtoo ah waa hoggaamiye laakiin markan ma noqon markiisii amiire waa looga raaxaysta